cashirkani waa cashirkii 11aad ee buugga waxaan ku baranaynaa telling the time sida waqtiga loo sheego ayaan ku baranaynaa marka waqtiga marka sheegaysid waxa u baahan tahay inaad isticmaashid waxa lagu dhahay marka use verb to be when giving or asking the time mar walba verb to be ayaa isticmaalaysaa marka waqtiga sheegaysid waqtiga marka sheegaysid verb to be ayaa isticmaalaysaa ama markaad weydiinaysid tusaalahaan oo kale what time is it ayaa leedahay what time ma waxaad sugaysaa fursaddii shaqo inay ku imaado balse lagu dhaho waan ka xunnahay luqadda ingiliishka kuma hadli kartid mise hadda ayaad go'aan gaaraysa oo aad iska xalinaysaa problemka luqadda ingiliishka fahaysa waxaan fursad kuu siinaynaa inaad koorsooyinkan ingiliishka ayagoo dhammaystiran aad tijaabiso hadday ku anfacaan lacagta bisha ayaad iska soo dirid haddaba linkiga hoos ama kor ama profile ka muuqdo iska soo diiwaan gari is it waqtiga waa meeqa saac weeyaan what time is it waa meeqa saac marka cashirkani ma ahan cashir aan ku baranayno sida saacadda loo aqriyo waa cashir aan ku baranayno sida English loogu sheego saacadda marka saacadda hadii aadan aqoonin sida loo aqriyo ama sida saacadda loo sheego waxaad u baahan tahay markaasi qofku barayo u baahan tahay marka saacadda tahay shantii markay tahay oo kale ama 5 galabnimo markay tahay ama 5 subaxnimo waxaad leedahay it's 5 o'clock waa shantii ayaa leedahay waxa kaloo aydan la mid ah it's 5 na waa dhihi kartaa ayadoo o'clock dhihin marka 5 dhahdo inay morning tahay iyo inay afternoon tahay markaasi qofka wuxuu ka dareemi karaa jawiga ayuu ka dareemi karaa laakiin haddii uusan jawiga ka dareemi karin oo kale markaas oo kale waxaad ku qasban tahay inaad u sheegto inay am tahay iyo inay pm tahay subaxdii oo kale lcd oo kale 5 o'clock oo kale 5 subaxnimo oo kale ama 11 subaxnimo marka waxa kaloo ayadana rabaa meesha inaan ku sheego waqtiga sheegistiisa koonfurta iyo waqooyiga waa ku kala duwanahay waqooyiga marka waxay isticmaalaan standardka caalamiga ah ayay isticmaalaan adduunka oo dhan laga isticmaalo hadii 5 subaxnimo saacadda 5 sheegayso 5 weeyaan sidaas waa standardka internationalka laakiin koonfurta waxaan isticmaalnaa ma aqaan system ka duwan waxaan isticmaalnaa waqti ka duwan markay shantii markay saacadda ku qoran tahay waxaan dhahnaa 11 oo habeenimo ama 11 waxaan dhahnaa 11 saac 11 saac ayaan dhahnaa 11 saac anaga ula jeedno 5 galabnimo ula jeedno marka sidaas weeyaan ma aqaan Talyaaniga malaha nooga imaata malena Talyaaniga ama laga isticmaalo arintaasi marka it's 5 o'clock waa shantii weeyaan it's 5 waa shantii waa isku mid weeyaan hadii ay dhaafto shanta hadii ay dhaafto rubac ay dhaafto waxa leedahay it's a quarter past 5 it's a quarter past 5 waa shantii oo rubac dhaaftay it's shantii oo rubac dhaaftay weeyaan waxa kaloo ayada la mid ah inaad dhahdo kale it's 5:15 waa shantii iyo 15 daqiiqo weeyaan ayadana waa dhihi kartaa shantii iyo 15 daqiiqo quarter marka waa rubac weeyaan marka rubac sheegayso waxa leedahay it's a quarter past 5 waa shantii oo rubac dhaaftay hadii ay half dhaafto ama shantii bar ay tahay oo kale waxa leedahay it's 5 past 5 it's half waxa leedahay it's half past 5 waa shantii oo dhaaftay nus dhaaftay ama half dhaaftay ama waxa kaloo dhihi kartaa it's 5:30 waa shantii iyo 30 daqiiqo waa dhihi kartaa alright waxa kaloo noogu xiga markay ay rubac dhiman tahay markay wixii waqtiga rubac dhiman tahay ee tahay 5:45 ee tahay oo kale markaas oo kale waxa leedahay it's a quarter to 6 it's a quarter to 6 waa lixdii oo la rubac waa lixdii oo rubac la hadii kale waxa dhihi kartaa it is 5:45 waa shantii iyo 45 alright intaas waa fahanteen aan rajeynayaa waqtiga intiisa kale hadii aysan rubac iyo waxna aysan ahayn oo kale numberkun baa sheegaysaa it is waxa dhihi kartaa it is 23 it's 6:23 waa lixdii iyo 23 ama waa lixdii iyo 22 iyo wixii la midka waa fahanteen aan rajeynayaa marka waxa kaloo marka vocabulary ay meesha noogu jiro midnight waa saq dhexe weeyaan habeenkii markuu saq dhexe kala barka jooga ayaa midnight la dhahaa noon waa weeyaan waa duhurka weeyaan markuu maalintii kala bar joogto 3 am waxa weeyaan waa galinka hore weeyaan saddexda subaxnimo weeyaan saddexda subaxnimo ama galinka hore weeyaan ama waxa anaga koonfurta naqaan oo kale 9 saac oo habeenimo weeyaan 3 am 3 pm waxa weeyaan waa saddexda galabnimo weeyaan laakiin anaga waxa naqaanaa 9 saac oo galabnimo 9 saac oo galabnimo ayaa marka cashir waqtiga ku saabsan ayaa halkan noogu jiro alright marka waa laba qofood oo shaleemo u socdo film isla soo daawana weeyaan marka gabadhi marka waxay leedahay what time does the movie begin meeqa saac ayuu filmka bilaabanayaa
kadibna wuxuu ku jawaabay it begins at 8 wuxuu bilaabanayaa 8 ayuu bilaabmayaa marka waxay leedahay at 8 ma 8 oh no we are going to be late waan daahi doonaa why what time is it ayuu dhahay sabab maxay tahay waqtigu ii sheeg meeqa saac weeyaan markaas waxay leedahay it is 7:30 waxa weeyaan waa 7:15 we have to leave right now hadda waa inaan dhaqaaqnaa I can't leave now hadda ma bixi karo I am shaving waan xiiranayaa ama garka ayaan iska xiirayaa kadib waxay leedahay please try to hurry I don't want to be late for the movie ma doonayo inaan u daaho fadlan degdeg ma doonayo inaan ka daaho shaneemada alright codka ayaa noo shidayaa marka What time is it? Listen to the model. What time does the movie begin? It begins at 8 o'clock. At 8 o'clock? Oh no! We're going to be late. Why? What time is it? It's 7:30. We have to leave right now. I can't leave now. I'm shaving. Please try to hurry. I don't want to be late for the movie. alright waan fahanteen rajaynayaa marka casharka halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa insha Allah u diyaar garooba casharada xigo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh